بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. mahad ilaahay baa la tuhoriyo tudambaba aniga oo ku hadlaya magaca ururka samafalka ee Tawfiiq. maanta waxaan joognaa degmada la yiraahdo magaalo cad. marka waxa la soo wakiishay hablo walaalahaya ah oo ku nool magaalada wadanka UK gaar ahaan magaalada London. hablahaas oo soo dirtay lacag ah dhan $2,300 iyo maxaa la yiraahdaa $9 sidii ay ahayd lacagtaasi sidaas ay ahayd. waxa kale oo hablahaasi waa hablo muxsiniina maaha hablo jecel inay magacooda sheegaan. lacagta waxay yiraahdeen dadka walaalahaya ee soo barakacay hana loo gaarsiiyo. maanta annaguna halkii loogu talagalay iyaan soo gaarsiinay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waa aroor jimce si qurux badan bay mataqaanaa ay walaalahaya u gudoomeen. insha Allah maamulka degmadana ka mahad celin doona. waxa kale oo lacagta ku jirtay 1500 oo naga soo gaadhay walaalkaya muxsina oo magaalada Hargeysa jooga. meeshii ay ka soo gaadhay isaga garanaya. dhammaan waxaan leenahay waxa jirtay oo kale laba hablood oo jooga midna Canada midna ay joogto wadanamada Scandinavian-ka. mid 150 bay soo dirtay midna laba habloodna 200 bay soo kala dirteen. lacagtii intaasay dhamayd. waxa weeyaan intii Ilaahay u qadaray waxay nagu yiraahdeen raashin iyo bacasiya waan siinay. insha Allahu rahmaan sidaad shaashada ka arki doontaan. waxaan leenahay cid kasta oo walaalahood soo caawisa Ilaahay waxaan u baryaynaa in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. maalinta la qatan yahay la qaawan yahay inay Ilaahay had uga dhigo. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. Ilaahay gacantiisana lagu dargaa. waxaad noogu soo ducaysaan inuu Ilaahay dadka abaaraha ka saaro dhibaatada ka faydo. Ilaahay waxaan idin leenahay idinkana maalintan ka خير بدن الله يدينكم بدله وحنكون وريتشنا يا إمك ولا شيء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي بما هذه وصقناتي تهرية تضمبا إله سورة جري أنا وعاف ما بقبنا ولا له إن محن كل هذا أبارها وصق بركعي إن ساق أو جمعة هو بريسنه إذا سببته هاي ولا لها ملك استيشوغان با أنت أي ولا بس رشيء يسي لصو بحي محن كل هذا وأنت أجود ين لصو نيجي صدقات إلهي وحنو برجعنا إن عاف ما كهلان إن عبادة صوبة كهلان إن إلهي جنة أبو بدله هو ما أنت الله كهننا إلهي وقدقه محن كل دمشق شفلا وقدقه إلهينا الروب كيس يمدر كيس خير قبا إلهينا لسه قاعدين إلهي كبرجينا إلهي نخلو وصيه ونوصيه إلهي كبرجينا أنتي لسه قارسية وصاك كفر أحسننا إلهي بقى مهدا إسكال سو قارسية وحنا كوريتشنا يا أرجو كهذا لي مقع أورك توفيق ولكن إبراهيم أو أحد دونيه دقمة العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني howlwadeennada ذا ururka samafalka ee Tawfiiq يعني بعض الصحافة تدوينها degmada magaalo cad يعني madaxda ama يعني ciidanka nabadgelyada dhammaan waxaan ugu salaamay salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. horta mahad Ilaahay baa iskale Ilaahay bayna mahad u sugnaatay. waxaan si aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo يعني ka qayb qaadatay dadka dhibaataysan ee maanta degmada magaalo cad yani ku soo barakacay ee yimiday ee deegaanadoodii ka soo barakacay cid kasta oo wax ka geysatay waxa la Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu bedelo. ilaahayna ha uga dhigo kii yani gaashaan naarta ka badbaadiya yani waqtiga dambe ee aan cid u naxaynin. markaasi aniga maanta mahadnaqoon baa ii yaala wax kale oo badan oo ii yaala ma jiraan. marka cidii soo bixisay iyo cidda yani soo fulisay hawsha loo keentayba aad baan ugu mahadnaqayaa. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. marka hore ilaahay baa mahad leh inaan ilaahay isu keenay markaas risqa noo keenay iyo muslimiinta noogu soo dhiibay ayaa mahad leh. marka xiga dadka noo soo diray iyo hablaha sida iyo inamada sida ayaa mahad leh. marka saddexaad gudoomiyaha farsameeyay ee noo keenay baa mahad leh. waxaanu nahay anagu dad ka soo hayaamay oo ka soo guuray gobolka Daadmareed. waxaanu dadkii xoolo dhaqatada ahay xoolaha watay xoolihii badidoodu way iska baxeen. waxa joogaana wax si raad badan leh maaha. Allah raxmaanka ah baan raxmaad barakale ka sugaynaa dadka gacalka ah muslimiinta wuxuu baanu leenahay marba wixii naloo keeno baan ka qaadanaynaa. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore dadkan muxsiniinta ee walaalahoodan dhibaatadu ay abaartu waxyeelaysay u keenay deeqdan ballaaran oo ka kooban
sideetan qoys marka hore waxaan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hablahan walaal ka keenay gobolka awdal ee boorame ee sideetanka qoys ee raashinka saaka u keenay iyadoo ay meel kasta dhibto ay ka taagantahay haddana muddaanta soo siiyey degmada magaalo cad ee uu ka guddoomiyey ibraahim maxamed annaguna aanu nahay beesha ka soo guurtay gobolka togdheer gaar ahaan gobolka daadmadheedh gaar ahaan degmada harasheekh intii aanu gobolka nimi waanu ku sugannay hadda 6 bilood oo habeenala intaa gobolka awdal unbaa waxna siinayay hadday tahay dawladda iyo hadday tahay dadka shicibka ah ilaahay jayaasas ajar iyo khayr ka siiye intaaba dadkaas ma nagu hayay meesha haddaan u nimid dadka gobolka awdal sida ay noo soo dhaweeyeen ama siday wax noogu qabteen intii aanu had iyo jeeraale soo guurtadu marba qaaraday guurtaan qaaradan galbeed ama gobolka awdal aanu soo guurno sida la noo soo dhaweeyay cid la mid ah oo noo soo dhaweystay odayna kama sheekayn waxaanan uga mahadcelinaynaa gobolka iyo mas'uuliyiinteeda iyo shacabka muxsiniinta ee dadka walaalahooda ee abaartu keentay wax siinaya ee 24 saacadood haday biyo tahay iyo haday baad tahay intaba la garab taagan saakana waxa la noo keenay intan marka ilaahay waxaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadle iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay miisaanka xasanaadka ugu